بسم الله الرحمن الرحيم أرضي كسر هذا مركلية مادتني فيزيكا chapter كي إنه كده حجرني electronics وها chapter كشناد فصل كأفراد دوكسي كسرعة وهنوروسو قادناي lesson 2 part A وهنو ما أنت بلاوينا lesson 2 part B وكوسابسن ولي وحنا كده حجرنا electronic components وأغلب كإلكترونيك كذا بيس كواه كشقيسية. وحنا هروسو قادنا موضوع إنه هرب بارت إنه كقرنا لبا device وإنه كان كواد كشجناي diode طبعا diode ولا بقوتين له وحنا نريد كرنطة أيوه قول هذا إنه وصعت هال direction أم هال شهور. ضرب كل هذا وحنا كسو عرقناي device كله اللي راه LDR light dependency resistor isaguna waxa uu qabtaa resistance-giisa ayaa dabcan waxa uu ku xiran yahay amount-ga ilays ee ku soo dhacaya isagoo device kale la adeegsanayana waxa uu suuro geliyaa in loo isticmaalo sida street lights oo kale laambadaha wadooyinka ku xiran ee sida automatic ah oo shidma iyo meelo kale oo badan arday intaynan casharkeena maanta bilaabin aynu isla daawano fariin caafimaad oo inoo ka timid wasaaradda caafimaadka mar walba ku dhaq gacmahaaga biyo iyo saabuun si dhammaystiran gaar ahaan marka aad qufacdid ama hindhistid marka aad caawisid qof xanuunsan ka hor cunto cunista iyo mar kasta oo aad suuli isticmaashid iyo mar walba oo aad shaqo qabatid farahaaga oo wasakhaysan ha ku taaban sanka afka iyo dhegaha way bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu bilaabaynaa casharkeena maanta qodobka ugu horeeya arday waa resistor af Soomaaliga caabiye resistance-ga iyo ka hadalkiisa iyo symboliskiisa waxaanu ku soo marnay fasalka form 3 dabcan resistor shaqadiisu maxay tahay ama caabiyaha shaqadiisu maxay tahay wala keeps the current and voltage at the level is required waxa ku ilaaliyaa qulqulka korontada iyo xoogga dabdhaliyaha ama voltage-ka at the level is required level-ka looga baahan yahay beherkii looga baahan ana uu limit garaya for the other components to work properly si shayasha kale ay ugu shaqeeyaan si sax ah ay ugu shaqeeyaan marka aynu device electroniga furfurno waxaanu arkaynaa sawirada ama device-ka meesha inoo ka muuqanaya electrical symbol laba u qaybsami jiray dabcan form 3geenu ku soo aragnay waxa la kala yiraahdaa variable resistor oo calaamada hoose ah iyo fixed resistor oo ka sara marka waxa la iska doonayaa koow component-ga magaciisa labo shaqada uu qabanayo saddex symbol-kiisa calaamadiisa marka waxa leenahay limits the current and voltage at the level is required ayuu ku xadidaya dabcan variable resistor-ku slide-kaas uu leeyahay marna waxa la fiilada dhererkeeda dabcan ku xiran tahay waa factors-ka resistance-ga saameeya ayay kamid ahayd length marna dhererka fiilada la badinaya oo resistance-ga badanaya marna dhererka fiilada la soo yareynaya slide-kaas la soo durkinayaayo waxa yaraanaya resistance-gi markaas current-gu badanaya wayahay waxa ka xiga qodobka afaraad capacitors af Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa marxiye capacitor component-ga electronic component-ga markaad furfurto dabcan waxaad arkaysaa devices dhagaxaan ama material noocaas oo kale u samaysan shaqadoodu waa maxay store the electric charges waxay kaydiyaan danabka ayay kaydiyaan ana waa device u qabanaya shaygan charge-ga u kaydinaya symbol-ka calaamadiisa isagana waxaanu ku soo aragnay isla form 3 baynu ku soo qaadan waa device-keena afraad marka waxaad tidhahdaa store the electric charges capacitor stores waxa uu kaydiyaa the electric charge calaamadiisa electrical symbol-kiisana sidaas aynu soo qaadanayna qodobka inoo xiga waxa weeyaan red switch ama red switch waxaad tidhahdaa waa switch operated by magnet waa switch ku shaqeeya magnet war mu shaqeynaya macnaha markii magnet loo soo dhaweeyo sida halkaa ka muuqata dabcan halkaa aynu tilmaamayno labada feero ma labada birood way kala tagsan yihiin marka halkaa goobada dabcan halkaa aad u fiirso labada birood way kala tagsan yihiin okay marka magnet loo soo dhaweeyo marka waxa dhacaya labadii birood
wuu isku soo dhawaanaya soo kan ayaa waxa la yiraahdaa switchka noocan u shaqeynaya dabcan mareegta waa la sii dhameystiraya labadiisa gees bay ka sii talaalan tahay red switch ayaa lagu magacaabaya waa switch operated by magnet tusaale haddaan u soo qaadana xagee laga helaa ama electronic device kan sida haddaan u fiirsano computerka oo kale waxaa arkaysaa bilmetel hadda computerka shaashadiisa waa daaran tahay waxaad samaynaysaa computerka shaashadiisa markaad isku laabto computerka sidaan oo kale aan ka dhigno waa uu isdeminayaa isliib buu gelaya dabcan okay inuu damo maxaa suuro geliyey waxaa jirta dabcan halkan ayaa waxaa kaga jira magnet halkan waxaa ku jira switch marka switchkan magnetkaa la shaqaynaya ee screenka off garaynaya ayaa waxaa lagu magacaabayaa red switch haddii tusaalaan u fiirsano halkan dabcan dee wax shay bira markaa ku dhejisid oo hadde uu qabsanaya birta waa ku dhegaysaa halkan marka waxaad tidhahdaa waa red switch magnetka halkaas ku jira xaggana waxaa ku jira switchka ayaa ku xiran marka kaasa waxaa la yidhahdaa red switch oo electronic deviceska loo isticmaalo meelaha kaloo laga adeegsan karo waxaa ka mid ah bilmetal red switch installed on a door gurigo kale gurigaaga waa ku xiran kartaa tusaale halkaa waxaa u fiirsataa albaab door closet albaabku waa xiran yaad waxaa ku rakiban meesha aan calaamadayn inu fiirso goobada aan gelinay feeradu way kala tagsan tahay anaa switchku markaas waa open ya normally open uu furan yahay marka hore magnetkiina xagee buu yaalo uu ka hooseeya soo then waxaa dhacaysa bilmetal qof baa soo galay guriga sawirka labaad fiiri sida dee tuugoo kale marka qof soo galo waxaa dhacday albaabkii uu soo furay magnetkiibu dee meeshii ka soo dhaqaajiyey soo markaa magnetkaa uu soo dhaqaajiyo maxaa imanaya feeradii markii hore labadii biroodoo kala tagsanaa switchkii kala tagsanaa imika fiiri waay contactigii waa xiran yahay soo laambadiina way daaran tahay soo xitaa gambaleel baa ku xiran gambaleelka laftirkiisu sharqan buu samaynaya marka switchkan waxaa loogu talagalay marka qofku albaabka sidaa u soo galo kow gambaleelkaa qaylo bilaabaya sax adigii maxaa ogaatay in albaabkii la soo galay soo haddana maxaa u baahan tahay inaa aragtid laambadiina automatic bay u iftay marka sida albaabka loo soo riixaba waana dareemaysaa sharqantiina waa maqlaysaa iftiinkiina dee qofka soo galaysa u ogaatid waad arkaysa marka switchka noocaana ee electronicska loo isticmaali karayo waxa weeyaan red switch ama red switch ayaynu ku magacaabaynaa waayahay waxayna ku xiga leds ereyga led dabcan waa display ayay ka timid waa light emitting diode kelmaddu waa light l waxay u taagan tahay l waa light idu waa emitting diduna diode marka light emitting diode oo waxyaabaha signalka soo bandhiga iftiin soo bandhigaya leds haddaynu tusaale u fiirino just like this component kan markaan u fiirsano wuxuu leeyahay dee gulubyadan oo kale hadda inoo muuqanaya red blue le green le midab kasta le kuwana waxaa lagu magacaabaya leds in your own phone telefonkaaga caadiga ama calculatorka markaad dee number taabato number barays garayso signal baa shaashada laga soo bandhigaya kuwaasa marka waxaa la yidhahdaa leds waxaanoo tidhaahdaa maxaan leenahay ladies glow way kaahaan way birqaan way ifaan when small amount of current passes through them marka qulqul yar oo koronto uu dhex maro ay waxay samaynayaan kaahid ifitaan ay samaynayaan kuwaas waxaa la yidhahdaa electronic symboliska ama signalkaas aan wax ku magacaabaynaa ladies calaamadda waa calaamadii diodka laakiin maxaa u raaca calaamadii diodka waxaa la raaciyey dabcan laba falaarood ya falaarada maxay macnaha emitting bay ka dhiganta ya light emitting diode so ladies glow when small amount of current passes through them ladiesku if bay bixiyaan kaah bay bixinayaan marka qulqul koronto ay helaan haddaan sii tusaalayno waxaa jira led display numberada 1 2 3 4 5 6 oo kale waxaa la 7 segment number kasta horta waxaa switchkoodu u diyaarsan yahay number 8 oo kale sida numberka 8 halka ka muuqata waxa u fiirsaa A iyo B C waa 7 segment haddaan rabno inaynu qorno bilmetal 5 inaynu qorno number 5 inaynu qorno laba switch oo ka mid aynu meesha ka saarayna ya switchka tusaale number 5 marka la qorayo maxaa la saaraya E iyo B baa meesha ka baxaya
soo haray marka number 5 baa meesha kugu qormiyay tusaale haddaan samayno ka 7 8 9 0 1 2 3 soo jeed maxaa leeyahay marka halka akhir qoraalka whenever you price a number marka soo aad number price garayso you close a switch baad off garaynaysaa ana open another switch kalena oo u shidmaya marka waa qaabka numbersku ay u soo bandhigmayaan formka lediska noocaasa waa 7 segment display 7 numberadii oo dhan halkaasi ku dhigay dee 10 markii la gaaro 10 waa maxay waa 1 iyo 0 gii la isaga dhigay Soomaa 12 baa la isaga dhigay Soomaa marka halkaasi ka bilaabmata 7 segment display number kasta ama switch kasta oo off garayso number buu soo saaraya waxaana ku xiga relay switch relay switch kan waa electromagnetic switch waxaan malaynayaa chapterka magnetism-ka ayaynu ku soo aragnay waxaa bedelay dabcan xagga electronicska marka la fiiriyo waxaa bedelay transistorska bedelay marka waxaad tidhaahdaa relay switch waxaad tidhahdaa halkaa u fiirso is an electromagnetic switch waa switch electromagnetiga which allows one circuit hal circuit ama hal mareeg buu wuxuu ogolanayaa to control other circuit inay maamusho kantaroosho mareeg kale inay kantaroosho by switching on and off sawirka u fiirso aad u eeg halkaa kow wuxuu leeyahay laba switch oo midna aan niri waa switch A midna aan dhahayno waa switch B switchka A price garee sax marka switchka A la price garee maxaa dhacaya birtaa fiiladu ay ku duuban tahay waxaa loo yaqaanaa electromagnetka maxaa ku dhacaya wuxuu yeelanayaa awood magnadeed buu yeelanayaa waxa uuna soo jiidanayaa markaa u fiirso soft ironta ka horeysa ama birta ka horeysa ayuu hoos u soo dhifanaya haddaba maxaa dhacaya marka halkaa maxaa ka dhacaya meesha aan calaamadaynay switchkaasi contactigaasi waa uu xirmaya contactiga marka uu xirmo laambadii maxaa ku dhacaya way ifaysaa soo good switchka noocan u shaqeynaya waxaa la yidhaahdaa red switch shaqadiisu maxay tahay waa si mareeg kale controllays taas waxaa la yidhahdaa hadda tusaale waxaan usoo qaadan marka switch A iyo switch B waa laba switch oo kala madax bannaan sooma laakiin markay A la close gareeyo ayaa waxaa dhalanaysa magnetic fieldkaas wuxuu soo jiidanayaa ironta soft irontaas hoos loo soo jiidayaa then switchka B ayaa starmaya halkaana waxaad tidhaahdaa red switch waa circuit maamulaya circuit kale okay waxaana ku xiga integrated circuit like this one waa shaxan dhan oo isdhex gashan complex ah ay ku jiraan dhammaan qalabkii componentigii electronicska oo dhan ay ku jiraan bill metal waxaa halkan inoo ka muuqanaya resistorski caabiyayaasha way ka muuqanayaan waxaa muuqanaya diodiska aan hore usoo qaadanay capacitorska laftirkoodii dee waa dhagaxaantan dabcan waxaa ku jira transistorkii baa ku jira all devices waxaa halkaa kaaga muuqanaya waxay sheegtaa fuskii baa ka muuqanaya dhammaan deviceska marka electronic deviceska ee hal circuit ku samaysmay ayaa waxaa la yidhahdaa boardka ay ku samaysmeen baan waxaan ku magacaabaynaa IC integrated circuit marka waxaa tidhaha integrated circuit oo magaceeda kale uu yahay microchips waxaan odhanaynaa is a complex set of tiny components yaryar oo complex aad isugu dhafan and they are interconnections iyo xirmadooda that are imprinted on a few centimeter squared waxay ku jiraan dhowr centimeter square oo silicon semiconductor ayay ku dul samaysan yihiin halkaa waxaa kaaga muuqda dabcan waa resistorski waxaa kaloo kuu muuqanaya capacitors waxaa kaloo ka mida fuski oo kale ka mida waxaa halkaa ka muuqanaya waa diode groupka isu tegay waxaad tidhahdaa integrated circuit ugu dambayn qodobkeenna ugu dambeeya componentska electronicska dabcan waxaa kasii dambeeya waxaan filayaa waa transistor oo aynu lecture gaara ka dhigayno thermistor waa temperature dependent resistor temperature dabaleed wuxuu ka yimid thermistor marka la yiraahdo waa thermal transferring resistor marka kan intaan laga soo qaatay kana inta hore laga soo qaatay soo thermistor taasoo noqday marka
thermistor thermistor kan muxuu shaqo qabanaya marka symbol-kiisa calaamadiisa waa calaamad halka ka muuqanaysa waa tidhaa semiconductor whose resistance depends on waa semiconductor resistance-giisu uu ku xiran yahay temperature-ka uu dependent ku yahay waaya daban xaraf wax ku dul qoran erayba ku dul qoran NTC soo NTC waxa ka timid negative temperature coefficient laba u qaybsamaya marna temperature-ka iyo resistance-gu mar oo israacaya direct proportional bay isleeyihiin marna waxay isku yihiin inversely proportional marka waxa la kala yiraahdaa negative temperature coefficient iyo kan kale oo ah positive temperature coefficient labadaas u qaybsamaya waxyaabaha loo isticmaali karaya ama useska meelaha uu isticmaalkiisu gelaya waxaa ka mid ah projector lamp laambada hadda projectorka markaynu daarno dee marka sidaa derbiga ugu ifisaba horay dee ka iftiimi mayo marka in yar si yar iyo tartiiba ayaa brightness-kiisu u soo kacaya soo marka device-ka u suura gelinaya electronic emitters waxyaabaha electronics-ka cabiraadda sameeyo oo dhan ayuu device-kani ku jira oo dabcan markaynu isticmaalayno thermometer oo kale ama markaynu isticmaalayno electric meterska caadiga ee korontada ku shaqeeya digitalka wuxuu soo bandhigaa qaab digital wuxuu soo bandhigaya value-ga ay soo qorayaan waa wuxuu soo qoraya current buu soo qoraya laakiin value kasta muxuu ka soo horjeedaa amount of temperature buu ka soo horjeedaa marka waa electronic meters ayaa isagana loo isticmaalaa waa useska thermistor dhammaan componentska la isticmaalayo ee electronicsku ay isticmaalaan intaas ayay ku egyihiin waayahay exercise waa casharkani layligani waxa uu ku saabsan yahay dhammaan lessonkii aynu u bixinay lesson 2 party A iyo lesson 2 party B oo hadda kan aynu ku jirnaa su-aasha koowaad name the following symbols calaamadahaas ayaad magacaabaysaa waa A B C D E F shanta calaamad mid walba maxaa laga rabaa in mid walba inaad magaceeda ku qortid waa name the symbols magacaabo calaamadaha su-aasha labaad waxaa la isweydiiyey use the word is in the box to answer the below questions erayadan box ku jira erayada maxaa ka mid ah relay baa ka mid ah IC baa ka mid ah resistors baa ka mid ah ladis baa ka mid ah capacitors thermistors diode erayada adoo isticmaalaya waxaad buuxinaysaa meelaha which of the above components sare keebaa ka mid ah stores small amount of electric charge keebaa ka idiya emits light soo bandhigaya macnaha markii qulqul koronto ku soo dhaco allows the current to flow in only one direction keebaa u ogolaado korontadu inay hal jiho u socoto sidoo kale contains many circuits keebaa ka kooban many circuits with components formed on tin chips of silicon components badan oo ku samaysmay silicon yar oogadeed ku samaysmay waxaa kaloo ku xiga halkaa haddaanu fiirino uses small current from electronic circuit to switch more powerful circuit keebaa isticmaala electronic circuit si u daaro more powerful circuit iyo when the temperature increases resistance decreases when the temperature increases resistance decreases marka temperature ku bato resistance-gu waa yaranaya device kee wey macnaha halkaasaa ka dooranaysaa okay the diagram below shows su-aasheena saddexaad sawirkan soo socdaay waa sawirka halkaa ka muuqanaya waxaa ku qoran xarfaha ku qoran G iyo K iyo I iyo H iyo J okay name the indicated components G to K xarfaha waa magacaabaysaa mid walba device kasta oo sawirkaa leh magaciisa qoraysaa mid kale maxaa describe how this circuit works mareegtan markaa fiirinayso inta fiiriso sida ay u shaqaynayso explanation ka bixi su-aasha kale waxaa lagu weydiiyey state one use of this circuit noocan ah maxaa looga faa'iidaystaa useskiisa ayaad wax ka sheegaysaa su-aasha afraad ee ugu dambaysa waxaad haystaa laba sawir laambadaha eeg x iyo maxaa ku qoran y ba ku qoran waayahay diode-ka labada jiho oo u jeedo u fiirso calaamada uu ku sheegay waa diode dabcan haddaba waxaa lagu yidhi which lamp x or y labada laambadood teebaa y mise x lights up teebaa daarmaysa and which lamp does not teebaan daarmayn when the switch is closed justify your answer marka switchka s ay ku qoran tahay labadooda markii la xiro laambadaha midna way baxaysaa midna ma baxayso justify your answer casharkeena intaasu ku dhan yahay ardayay salaamullaahi calaykum mar kale iyo fariintii caafimaadka
baarista xilli hore waxa ay yaraysaa faafidda cudurrada sida duumada iyo covid. qaadashada wakhti hore ee daawada malaariyadu waxa ay yaraysaa xanuunka oo gaara heer khatar ah ama dhimasho iyo u nuglaanshaha covid-19.